Qaar ka mid ah shacabweynaha ku nool magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa telefishinka caalamiga ee Gobonimo TV waxa uu wax ka weydiiyay sidoo kale ciidan iyo ciidii hore faraqa u dhaxay telefishinka caalamiga ee Gobonimo TV u waramay waxaana ugu horaalkaasi ka hadlay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal oo ka mid ah suldaanada ugu cadcadgayga Soomaaliyeed isagoo dhamaanba ummadda Islaamka u diray tahniyad ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan ku jirnaa 10 maalmood Ilaahay ku dhaartay ay ugu qiimaha maalin cad ay soo baxdo ugu qiimaha badnayd baynu ku jirnaa Somaliland Awdal dhamaanteed waxaan leeyahay ciid mubarak intii naga xanuunsan intii naga dhimatay Allah u naxariisto inta xanuunsanaysana Allah caafiyo inta caafimaad qabtana Allah u siyaadiyo roob madar khayr qaba oo barakalana Allah ina siiyo oo dhulka maashina Allah ina siiyo abaartana Allah inaga soo jabiyo Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Awdal gaar ahaan Somaliland waxaan ku hambalyeeyaa ciid caafiya ciid al-adha aad iyo aad dhamaantiin aad iyo aad baan islaamay maanta cid walkan kala wadaagayo cid oo si gaar ah salaamayo cid oo la qaybsanayo ku soo dhaw telefishinka caalamiga ee Gobonimo TV وريد فرماجو وندوهاي قرنka جمهورiyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici madaxda mucaaradka maxamed Cabdiraxmaan Cirro Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha baarlamaanka taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakeysan halkan waxaan kaloon maxay hadanay tahniyad farxad leh u dirayaa labadeeda waalid maamo maxay hadanay markada heeye Maxamuud Muumin Xasan Cawaale dhammaan walaalahay ilmo Muumin Xasan Cawaale dhammaan awlaadooda dhammaan waxay si dhaleen intaan adeerka u ahay iyo intaan abtiga u ahay iyo intaan awooga u ahayba bal cid ay maanta halka farxad la wadaagayaan qoyskooda iyo qaraabadooda ku soo dhaw telefishinka caalamiga Gobonimo TV oo magaca ku bilaabay iyo meesha ka timiday iyo hadda meesha aad ku sugan tahay oo ka yimid Djibouti waxaan salaamayaa horta madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelan salaamaya marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd baan salaamaya waxaan salaamay qoyskan ka yimiday iyo ehelkan ka yimid baan salaamaya waxaan salaamaya odayga qaaligan salaamaya oo la yiraahdo Kamdi Daar Indris inanteeda yaro aan u dhalay Amiire Kamdi Daar Indris anigoo la yiraahdo Asmaale Rooble waxaan salaamaya asxaabteeda ay la joogta jawiga marka soo eegto maadaama wallahi jawiga marka soo eego in ka soo xalay ciid ay ahayd cird noo daay mise sow aan joogno wallahi waxa kama sheekeyn karo rag iyo naagaba ma sha Allah baan leeyahay ka waran ciid marka soo eego Djibouti iyo Boorama wallahi marka la eego ma xay kara wadanka ka yimid laakiin ciid way fiican tahay laakiin halkan qabo iyo jawi haysan oo fiicanahay ma sha Allah waxaad ka mid tahay dhalinyarta ku nool magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ee hadda nagala soo hotel soo ee magaalada Boorame waxaan wax ka weydiinaynaa maadaama ay maal farxadeed maalin ciideed yaa maanta si gaar ah u salaamaysa yaad farxadda la wadaagaysa ciidan iyo ciid hore maxay ku dugayn adoo magaca ku bilaabay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو الشيخ عبد الرحمن أبصينية waxaan kamid ah dhalinyarta ku nool gobolka Awdal maanta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed sidoo kale waa maalin taqaan farxadda aan la soo koobi karin waxaan ilaahay dhamaantiin ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan gaar ahaan asxaabta inkastoo ma taqaan in ka garanaysa magacayga muuqaygaba aad iyo aad baan idin salaamaya marka inta laga yimaado yaa si gaar ah u salaamaysa maanta Cabdiraxmaan waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi iyo dhammaan sidoo kale shacbiyadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kala halkan ka salaamayaa hooyaday macaan aabahay asxaabtayda ehel iyo qaraabo iyo cid walba oo muuqayga iyo magacayga garanaysa waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal Allah minkum minha salih a'mal ilaahay ciidan ciideeda bash barwaaqo iyo maxayadaanay nabadgelyaha nagu gaarsiiyo waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda waalidiintayda cid walba oo magacayga iyo muuqayga garanaysa ayaan halkan ka salaamayaa ka waran qoyska marka laga yimaado asxaabta marka laga yimaado qoftada ma si gaar ah u salaamay aad iyo aad si gaar ah u salaamay dhalinyarta ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama bal ciidani maxay kaga tukatay ciidii hore farq u dhaxeeya sabab muxuu noqonayaa wallahi horta run ahaantii waa ciid weyn ciid al-adha al-mubarak dhammaan Boorama gobolka Awdal waa laga ciidayaa meel walba xagan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal baan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ciid mubaarak farqa u dhaxeeya muxuu yahay horta kulli ciidina waa ciid wadaha ciid horna ciid fidri bahayd
labada ciido munaasabadooda kala duwan bay ciidaas waxay ciid fidri bay ahayd waa ciidan soo soornay bay ahayd ciidan waa ciidul adxa waa ciidii la xajiyay yom carrafa in shalay ana soo soornay marka waxay kaga duwan tahay kulliday labada magacba kala duwan sanadkoodu kala duwan yahay waa sanad cusub oo 2022 ama xaaskaaga ama asxaabtaada ama qof kala shaqaysato ma qof si gaar u salaamin ina xaaslaani madan xaaslahay iyada ku bilaabi lahaa laakiin aad maxabada ugu xumahay family-gan aad u salaamay ma barxad meel bay joogaan iyo ma wiisada TV ya halkan maanta si gaar uga salaamaysa maadaama tahay maalin weyn maalin ciidul carrafa ya halkan si gaar uga salaamaysa maanta daan ku bilaabo magacayga Khadar Cabdiraxmaan Ege family-kayga asxaabteeda dhammaantiin ciid mubaarak baad leeyahay bal ka waran ciidan iyo ciidii hore farqa u dhaxeeya kulay wax farqi u dhaxeeyo labada ma si gaar u salaamato saxibada ama qof la shaqaysato ama qof ku dhawahay telefishinka caalamiga ee Gobonimo TV waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed mar raba inaan qof si gooni ah u salaamo laakiin qof kasta muuqayga iyo magacayga garanaya waxaan rabaa inaan halkan ka yiraahdo ciid mubaarak ka waran farqa u dhaxeeya ciidan iyo ciidii hore wallaahi ani wax farqa u dhaxeeyo badan ima muuqdo qayb ka mid qoyskayga oo ka maqan magaalada tan qaar ka mid Djibouti joogaan kuwa ka mid qurbaha joogaan dhamaantood waxaan rabaa inaan halkan hambali uga diro oo ku dhaahday ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal marka inta laga yimaado yaa halkan si gaar u salaamaysa maanta gaar ahaan waxaan si gaar u salaamayno magacayga ku bilaabo Ismaaciil Qaali ummadda Nabi Maxamed oo dhan salaamaya ummadda reer Buurama salaamaya reer Djibouti waan salaamaya ciid mubaarak baan ka diray ka waran odagaaga ama saaxiibka ma si gaar u salaamay wallahi walaashay qaali baan salaamaya igu dhow qof waasleed uu ku weyn yahay marka laga yimaado yaa halkan salaamay waxaan salaami lahaa walaalkay qaali oo Ramadaan la yiraahdo inaan salaamiyaa aad oo mas'aana asgar ku salaamay wixii magacayga muuqayga garanaya oo dhanba waa salaamaya kan u duubay waxa la ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair waxaan maanta farxadda ciida awgeed inaan uga faa'iideeyo oo halkan uga hambaliyeeyo oo aan ka salaamo jeclaaday dhammaanba family-kayga asxaabtayda meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kullu aam wa antum bikhair يا سلام يا لا دنبيغوغا waa iska wada dhaaf labadooda marka xigto waxaan si salaamayaa muciidii oo Djibouti joogta iyo xaqana ku suganahay dadka ku sugan oo dhan waa wada salaamaya ummadda Nabi Maxamed oo dhan iyo salaamaya Muuse Bixi madaxweynaha xaqana haysta diyarta ku dhaqan gobolka Awdal ciidan iyo ciidii hore soon farqa u dhaxeeya muxuu yahay maxay ciidan kaga duwan tahay ciida soon bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ahaan horta ciidan iyo ciidii hore aad bay iyuu kala duwan yihiin gaar ahaan anigu ciidii hore waxaan ahaa arday baan ahaa ka tirsan ardayda shaqo qaran kolka mid keebaas leedahay macnaha way farxad badan wallahi labada ciidood way farxad badnaayeen ciidii hore rag qaaliya oo asxaabnahay baan la ciiday ciidana waxa la ciiday walaalahay asxaabtaydii family-gaygii aad bay walaal igu farxad badan yihiin family-gayga iyo qoyskayga aan leeyahay ilaahay sanadka badan baa inuu gaarsay bashbash iyo nabad qab صح أنا فرحان أنا لقيت كور يا مركز لبد والد لقي مادهم بقدر لقي مادو قرابة لقي مادو يا سكر لكم سلام سلام horta kow asxaabteeda qaaliga marnaanu kala hadhinta badan isla socono asxaabteeda ama insha Allah saaxiibayaal inta in ka badan insha Allah wada joogno diilaa marka asxaabta laga sii yimaadeen yaa sii gaar salaam xaajideedo laakiin saakan ka sheekay waa Maxamed Qalle Cusmaan Maxamed Farmaajo wararka warbaahinta Gobonimo TV magaalada Boorama